Wani waa maraakiib jariif oo ku jira badda Soomaaliya waxaana la sheegay in badidooda laga leeyahay wadamada waaweyn ee ciidamadoodu badda Soomaaliya u joogaan waxaa lagu sheegay la dagaalanka burcadbadeeda iyo argagixisada waxayna ka howlgalaan xeebta dheer ee Soomaaliyeed ee dheeran min badda cas ilaa badweynta Hindiya. Habeenkii badda Soomaaliya marka qalabka raadaarka lagu eego waxaa ku jira kumanaan ka mid ah maraakiibtan jariifka oo dunida dacaladeeda iskaga yimid. waxaana la sheegay in badidooda ay isticmaalayaan shabaag waaweyn oo dunida inteeda kale mamnuuc ka ah. waxaana la sheegay inay u yimaadeen inay gurtaan nooc ka mid ah kalluunka oo dunida si weyn looga jecel yahay waa kalluunka toonnada. waxaana la sheegaa in xeebta Soomaaliya ay tahay meelaha ugu badan ee kalluunka toonnadu uu ku dhalo ama uu ku nasto oo caalamkan aynu ku noolnahay. waxaana la sheegay shirkadahani kalluunka ay ka xadaan sanad walba xeebta Soomaaliya haddii dadka Soomaaliyeed mid loogu qaybiyay in qofkiiba ay kusoo hagaagaysa $500 ilaa $1,000 inta u dhaxaysa. waxaana la sheegay hadda inayba ku tartamayaan xeebta Soomaaliyeed wadamada waaweyn ee lagu yaqaano boobka hantida ummadda. waxaana la sheegay inay ka mid yihiin wadamada Spain, Faransiiska, Ruushka, Shiinaha, Japan, Iran iyo Hindiya. waxaana la sheegay inay kusoo biireen hadda maraakiib waaweyn oo warshadaysan oo iyagu isla goobta ku qasacadaynaya kalluunka toonnada. la yaab maray in la xado waddan sida Soomaaliya muddo bilaa dowlad ahaa waxaase ka sii yaab badan oo hadda bilaamatay in ciidamada Jamciyadda Quruumuhu ay maandeedka u siisay inay ilaaliyaan burcadbadeed oo hadda ay cadaysteen ujeedooyinka guracan ee Soomaaliya u yimaadeen. waxaana telefishinada caalamku ay muujiyeen sawirro muujinaya ciidamada shisheeye ee Soomaaliya jooga oo iyagu fuulaya maraakiibta jariifka ilaalana u noqonaya iyagoo markabkiiba ka qaadanaya ama shirkadiiba $2 milyan ilaalana u ah kana ilaalinaya inay burcadbadeed u khashqashto muddada ay jariifka wadaan. waxaana la sheegay inay siinayaan macluumaad goobaha uu kalluunku ku nasto waana burcadnimo sharciyeysan. dowladda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay Jamciyadda Quruumaha dacwad geyso ama ay dalka Turkiga la saxeexato heshiis iskaashi oo lagu ilaalinayo badda Soomaaliya laguna wareejinayo si sheer garee oo la wadaaga asxaabtaada si ay u gaadho Soomaali oo dhan.